wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gudida qabanqaabada shirka Hoodaale Yuusuf Warsame Axmed ayaa maanta tagay tuulada Agabar oo loo qorsheeyay in lagu qabto shirka ay dhawaan yeelan doonaan beesha bartamaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa. ujeedada wafdigan ayaa ahaa sidii ay u sii diyaarin lahaayeen goobta uu shirku ka qabsoomayo oo ah dugsiga hoose dhexe ee tuulada Agabar, waxaana xubnaha wafdigan halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay odayaasha deegaanka iyagoo u sameeyay casuumad qada sharafa. muddadii koobneed ee xubnaha wafdigu ay joogeen halkaasi ayaa waxa ay gabi ahaanba gooyeen geedka garanwaaga oo meesha aad uga baxay iyagoo gubay xashiish ay meesha ka soo ururiyeen, waxaana baneeyeen barxadda iskuulka horteeda iyagoo nadiifiyay halkaasi. munaasabad kooban oo loo sameeyay wafdigan ayaa waxa hadal ka jeediyay qaar ka mid ah xubnaha wafdiga iyo odayaasha deegaanka ee martida loo ahaa. ugu horeynba waxaa halkaasi hadal ka jeediyay oday Cabdi Cumar oo ka mid ah odayaasha deegaanka ee halkaasi ku soo dhaweeyay, waxaana hadal kooban oo uu halkaasi ka jeediyay ka mid ahaa: haddii aanu nahay beelihii gogosha fidiyay halka anagu waxaanu ka qeexaynaa inay hawshaasi si wanaagsan wajigeedii u dhacay, dhammaystiran tahay gogol xaadkeedii iyo hawsheedii. mahadda iyo qabanqaabadana kulley wixii la qabanayaba inuunbaa bilowdee cidda naga hurdadii naga toosisay hawshaa iska lahaydna waxay ahayd gudida qabanqaabada shirka sacad. sidoo kale waxa iyaduna madasha hadal ka jeedisay Marwo Foosiya Axmed Daahir iyadoo ugu baaqday guud ahaanba haweenka reerku in ay qayb laxaad ka qaataan isku dabaridka iyo agaasinka hawsha shirka ee dhawaan halkaasi ka dhici doona. Marwo Foosiya Axmed Daahir waxa ay ugu baaqday haweenka qurba joogta ahi in ay si weyn ugu diyaar garoobaan hawsha shirka oo ay qayb muuqata ay ku yeeshaan, waxaana hadaladii halkaasi marwadu ay ka jeedisay ka mid ahaa: gogosha fidiyay waxaan leenahay meel walba haweenka sacad mise ay joogaan dal iyo dibad iyo meel walba ka soo qayb galaan gogoshaan fidinay ee ku taala degmada Agabar iyo agagaarkeega. Mujaahid Axmed Cali Dable oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii hogaaminayay wafdiga isla markaana ka mid ah gudida qabanqaabada shirka Hoodaale ayaa si weyn ugu mahad celiyay odayaasha deegaanka ee ay halkaasi ugu tageen soo dhaweyntoodii iyo casuumadii ay ku sharfeenba. Axmed Cali Dable oo ku hadlayay afka xubnaha wafdiga ee halkaasi tagay ayaa waxa uu yiri: waxa inta isku fikirka ah ee aaminsan cidda ay salaad cumaamada u sitaan iyo cidda ay matalaan ee aaminsan magaca ee nagu boorisay nadirtay annaka lacagna cidinama siiso cidna ma shaqeyn. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beelweynta degan halkan ka kooban degmada Agabar ee runtii rag iyo dumar bale maalintii horna sida wanaagsan sharafta noogu soo dhaweeyay, maantana ilaa maalintii bilaabay inay gogashii ay u dhigeen tolkood beesha Sacad Muuse. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadallo kala duwan oo mahadnaq iyo bogaadin u badna halkaasi ka yiri Mujaahid Aadan Maxamuud Diiriye Aadan Ruush iyo Maxamed Ciise Tiyote oo si weyn ugu mahad celiyay soo dhaweyntii ay odayaashu u sameeyeen iyo casuumadii ay u fidiyeenba, waxaana ku guubaabiyeen in ay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan. gudida qabanqaabada ee maanta halkaasi tagay ayaa waxa dhawaan magacaabay suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye, waxaana shirkan oo muddo qabanqaabadiisu ay ka socotay gudaha dalka iyo dibadiisaba la qorsheeyay in la qabto bartamaha bisha Ramadaan ee inagu soo foole oo waafaqsan 17 bisha August sanadkan aynu ku jirno ee